soomaaliya qarka waxay u saaran tahay inay 19 ku noqoto dowladda federaalka u sababa soomaaliya waxay qarka u saaran tahay 19 ku noqoto oo dowlad bal iska dhaxli waayo waan aamusnay waa dul qaadanay waa samirnay quusaan maraynaa sababtoo ah waxaan waxba garanayn baa wax noogu daray ama ku dilay ama dil aan ka adkaada migaadkow war siyaasad maan taas siyaasad maan waxaan rab ama waa ku dilaa sharci daraan ku jooga sharci daraan ku joog haddaa diid waa ku dilaa hawdaa ka cuna qabatayna gargaarka bini'aadnimo ka cuna qabatayna Soomaaliya laga soo gaaray dowladda federaalka madaxda dowladda federaalka maanta joogta ha laga soo gaaro shacabka Soomaaliyeed ha laga badbaadiyo ilaahay badbaadi karo dadka masaakiinta maatada boqol jirka haweenka umusha dadku wax raxmi waaye oo diyaaradaha ka joojinayo oo maxaawarada ka joojinayo oo ciidamo soo diraayo oo burburinayo nidaam diid waayo kuwan gargaarka bini'aadanimo iyo deeqihii caalamka uu deeqa Soomaaliya oo dowladda Jubbaland shacabkeeda wax ku lahaayeen in la yiraahdo waa ka goynay lama geey karo safaaradaha loo yeero hay'adaha caalamiga loo yeero la yiraahdo Jubbaland maxaa ma geey kartaan maxna ma tegi kartaan Soomaaliya maanta meel aan dagaal sokeeye ka socon male sababteena dowladda federaalka askare hadday midiil baa loo hayaa war walaalayaalo in wax laydinka dhaxlo in wax laydinka dhaxlo ma rabtiin miya dowladnimo in laydinka dhaxlo ma rabtiin miya ma rabtiin waa noo muuqataay war maxaa laydinka dhaxlayaa burbur iyo dhiig iyo barakicin iyo boob miyaa laydinka dhaxlayaa waxba laydinku soo gaari maayo nimanka mas-uuliyiinta ah oo ku dagaalamahayo maamulkii dowladda Jubbaland waa inaan ka bedelnaayo maamul caasimadda muqdisho laga xukumo aan ka dhisnaa degmooyin gobolka Gedo banaadir maa la hoosgeynaa vil Soomaaliya maa la hoosgeynaa hortaan ugula fahmin lahay shacabka reer Gedo oo Jubbaland ah oo reer Jubbaland ah ha weydiiyaan kuwa u yimid annaga vil Soomaaliya maa laga xukumaa Jubbaland maa laga goynaa banaadir aan lagu daraa haddii maamulka Jubbaland leeyahay maamulkan Jubbaland maahan gobolka Gedo la Jubbaland uu ka tirsan yahay oo ka mid yahay degmooyinka ugu waaweyn waaye gobolka ugu weyn waaye xaggee la geynaya rabaa la geeyo arrintaa reer gobolka Gedo ma qabato waa ka raali gelinaynaa carqaladda laga daayaan leenahay dhibaatada laga daayaan leenahay ciddii danka leh waddada sharciga oo dastuuriga ha u soo marto dowladda federaalka gobolka Gedo iyo gobollada Jubbaland oo dhan hadday jubbada dhexe tahay hadday jubbada hoose tahay dowlad baa u dhisan oo Jubbaland la yidhaahdo ay taqaani aqoonsan tahay oo xubinka dowladda federaalka goorna la ka saaray ma garanayo laakiin ayagaa barreen xubinka ahaano in federaalka sii jiro ayay rabeen taasa caddaynayso federaalka Soomaaliya wada qaadatay oo dalka lagu nabadeeyo oo dowlad goboleed lagu dhisay bayba rabeenba marqaadi taasa ka ah maamulka magacaabaya xamar baa laga xukumaa maamulkaas magacaabaya xamar baa laga xukumaya halkaa waxaa kaaga cad in federaalkii aysan rabin waxaan leeyahay war carqalad iyo dhibaato ha sii wadina idiinma soconayso walaalayaalow maanta maxaa taagan maanta waxa taagan waxa waaye gargaarka bini'aadanimo iyo deeqihii caalamka uu deeqa Soomaaliya oo dowladda Jubbaland shacabkeeda wax ku lahaayeen in la yiraahdo waa ka goynay lama geey karo safaaradaha loo yeero hay'adaha caalamiga loo yeero la yiraahdo Jubbaland maxaa ma geey kartaan maxna ma tegi kartaan war maxaa shacabka loo cuna qabatayna maxaa gargaarka bini'aadanimo loo siyaasadayna cod dheer waxaan ku leenahay gargaarka bini'aadanimo yaa la siyaasadayn
dowladda caalamka beesha caalamkana u sheegaynaa in la siyaasadeeyey gargaarka bini'aadanimo ururada caalamigana u sheegaynaa hay-adaha deeqda bixiya u sheegaynaa war jubbaland waxaa lagu cunaqabateeyey oo la diiday in deeqaha caalamiga la gaarsiiyo shacabkeeda waa la cunaqabateeyey waxaa cunaqabateeyeen dowladda federaalka xasan sheekh ugu horreeyo iyo ra-iisul wasaare xamse war arrintaa ka jooga siyaasaddu waa meesheeda waa laga wada hadli karaa waa la isku khilaafi karaa waa laga heshiin karaa waa laga wada hadli karaa laakiin gargaarka bini'aadanimo yaa siyaasadda lagu dabaqin waxaa kaloo taa la mid ah hay-adda duulista hawadana idna yaa la siyaasadayn idna waa la siyaasadaynayaa gacanta soomaaliya waqti badanay ka maqneed waana lagu soo celiyey waxa u codeeyey u ololeeyey waxaa koow ka ah in soomaaliya lagu soo celiyo dowladda jubbaland haddii maanta lagu dhibaateeyo meesheedii bay ku noqonaysaa meel dhexdhexaadna la geeyey waa lagu qasbanaanayaa sababtaan kugu aaminay oo dhexdhexaad ahaan weysay oo siyaasadaysay oo xabad ani laygu dilaya ka dhigatay waa inan raadsadaa meel dhexdhexaad ah gargaarka bini'aadanimo iyo nabadgelyada yaa la siyaasadayn ciidankiyaa siyaasada loo adeegsan hay-adda duulista hawada yaa siyaasada loo adeegsanin soomaaliya maanta meel aan dagaal sokeeye ka socon ma leh sababteedna dowladda federaalka askale caddaymi diil baa loo hayaa war walaalayaalow in wax laydinka dhaxlo ma rabtiin miya dowladnimo in laydinka dhaxlo ma rabtiin miya maba rabtiin waa noo muuqataaye war maxaa laydinka dhaxlayaa burbur iyo dhiig iyo barakicin iyo boob miyaa laydinka dhaxlayaa waxba laydinku soo gaari maayo shacabka soomaaliyeed waxaan leehay siyaasiyiintiisa qaybaha kala duwan dalka hore usoo hoggaamisay iyo kuwa hadda hoggaanka wax ka hayaba ee u muuqdaan ay u muuqato wax maan dalka maraayo hoggaamiyaasha dhaqanka aqoon-yahanada culamaa udiinka waxgaradka ha loo sara kaco badbaadada soomaaliya qarka waxay u saaran tahay inay 19 ku noqoto dowladda federaalka u sabab ah soomaaliya waxay qarka u saaran tahay 19 ku noqoto oo dowlad baliska dhaxli waayo ilaahay wax badbaadin karo sidii shacabka soomaaliyeed dowladnimadiisa loo badbaadin lahaa ha loo sara kaco waan aamusnay waa dulqaadanay waa samirnay quusaan maraynaa sababtoo ah waxaan waxba garanayn baa wax noogu daray aan ku dilay amay dil aan ka adkaada miga adkow war siyaasad maahan taas siyaasad maahan waxaan rab ama waa ku dilaa sharci daraan ku jooga sharci dara ku joog haddaad diidda waa ku dilaa hawadaa kaa cunaqabataynaa gargaarka bini'aadnimo kaa cunaqabataynaa war sharciyadda aad dadku dhibaataynayso jubbaland xubin bay ka tahay dowladnimo waxay ku leedahay cod bay ku leedahay sharciyadda aad ku dhibaataynayso shacabka soomaaliyeed cod bay ku leedahay jubbaland codkeedana dheer waxay ku leedahay soomaaliya laga soo gaaro dowladda federaalka madaxda dowladda federaalka maanta joogta ha laga soo gaaro shacabka soomaaliyeed ha laga badbaadiyo ilaaha badbaadin karo dadka masaakiinta maatada boqol jirka haweenka umusha dadku waa raxmi waaye oo diyaaradaha ka joojinaayo oo mucaawanada ka joojinaayo oo ciidamo u soo diraayo oo burburinaayo nidaam diid waayba kuwaan aniga dowladdaas waxa u aqaan dowlad dumis qaran ayaga waxay la bixeen magaca maxaa dan qaran anu afkeyga soo marin mayso dulmi qaran dumis qaran burburin qaran intaasay ku caan baxeen waxaan leeyahay waliya islaam baane
islaamnimadan waa sheegataan waan arkay idinkoo meelo badan masaajidka khudbaynaye war shacabka u tura aan badbaadino shacabka aan badbaadino maanta shirkan jaraa'id waxaan leeyahay sanad cusub waaye war dib isu fiiriya horta 2024 wixii ka horreeyey ubakaadiyo bal 24 wixii aad samayseen fiiriya ilma riyaalo kuwaana qaata walaalayaalow xasan iyo xamsow kuwaana qaata ha ku darina ha ku bilaabanina waddadii ay ku socoteen 24 walaalayaalow ka leexda wadda kalas mara oo ummadda wadda kale marsiiya taas waxay dhaxalsiinaysaa burbur baaba iyo hoog iyo halaagin dhaxalsiinaysaa ka leexiya shacabka jubbaland waxaan leeyahay midnimadiina adkeeya wada socodkiina adkeeya samirkiina badiya dulqaadkiina badiya isdifaaca waa isdifaacdeene wax yar baa idiin dhimane walaalehen ayagaaba si uu ilaahay naga dhihi doonaa ama ayagaa si uu ilaahay dhihi doonaa soo waantoobi doono waddadaas qaldan ka soo noqon doone shacabka jubbaland midnimiisa adkeeyo amnigiisa ilaashado